ku soo bir kanaalka sahanka dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum dhammaan akhyaarta sharafta leh ku soo dhawaada kanaalka sahanka dunida. Muuqaalkani waxaan kuugu soo bandhigi doonaa sababaha inta badan haweeneydu ay ku diido ninka. Sababta koowaad, been sheegidda. Mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee xiriirka jara waa khiyaanada iyo beenta, xitaa haddii uu weli jiro jacayl aad u weyn oo u dhexeeya labada dhinac. Laakiin beenta, khiyaanada iyo daacadnimo la'aanta waxay ka dhigtaa xiriirka mid aan jirin. Maxaa yeelay gabadhu waxay bilaabaysaa in ay ka shakido, xitaa haddii uu run sheegayo ee ay badatay beentiisii hore waxay keenaysaa kala tag. Marka sababta ugu weyn ee xiriirka burburisa waa beenta. Qofna ma jecla in uu sii wado xiriir aan deganayn. Sababta labaad, ma lihid qofnimo xooggan. Dumarka uma baahna ninka sida carruurta oo kale ah, sidoo kalena daciifka ah. Fikradaha uu qaatana ama talooyinka ay siiyaan hooyadiisa ama saaxiibadiisa, balse waxay u baahan tahay nin xooggan, qaadan karo go'aan, qaadi karo mas'uuliyaddeeda. Sababta saddexaad, ma tihid nin hami sare leh. Dumarku waxay rabaan nin han leh oo dhaqaale ahaan degan, oona leh mustaqbal shaqo oo wanaagsan. Maadaama haweeneydu ay diidayso nin aan mustaqbal lahayn, sidaas daraaddeedu gabadhu waxay rabtaa nin shaqo wanaagsan haysto ama leh ganacsi u gaar ah oo soo koraya oo mustaqbalkiisa dambana anfacaya. Sababta afraad, waxaad tahay qof arxan daran. Haddii ninku yahay mid aan lahayn dareen oona garanaynin habka saxda ah loola dhaqmo haweenka, waxaa sii kordhaya suurtagalnimada in ay diido gabadha. Hana isku qaldina naxariista iyo daciifnimada. Naxariistu waa shay gooni ah, daciifnimaduna waa shay kale oo gooni ah. Asbaabta shanaad, waxaad leedahay sumcad xun. Haddii uu ninku leeyahay sumcad xun oo aysan fiicnayn ujeedooyinkiisa uu gabadha ka leeyahay, haddii ay gabadha ogaato waa ay ka fogaanaysaa. Sababta keliya uu ku soo ceshan karana ayaa ah in uu ka fogaado waxyaabaha sumcaddiisa dilayo, sida saaxiibadiisa ama dumar kale haddii ay jiraan. Asbaabta lixaad, waana tan ugu muhiimsan, wax dan ah kama lihid nadaafadaada. Ninku maaha inuu mid qurux badan ahaado sida jilaayaasha. Dabcan, inkastoo uu muuqaalka jirka aad muhiim u yahay, haddaba nadaafadda shakhsiyadeed waa saldhigga qofka shakhsiyaddiisa. Ama ninka ragga laga rabo ur fiican in uu yeesho ama caraf, labisto isagoo xiranayo dhar ku habboon, soona saarayo isteelkiisa. Muuqaalkeena meesha ayuu ku egyahay.